magacaygu waa Saciid Axmed waxaan ku koray halkan Hargeysa markii ugu horeysay ay fikradaas ugu dhalatay waxay 2017 horaantiisii sababta markaas igu kaliftay waxaan oran karaa kadib markaan qiimeeyay caqabadaha dalka ka jiray markaa oo farabadnaa oo noocyo badan ahaa matalan oo kale markii la eego mustaqbal daradii iyo xagaa rajada dhalinyaradu aad u liidatay rajada ka qabi karaan dalka dhalinyaradu caqabado noocaas oo kale ayaa markaa igu dhaliyay safarkayga markii aan taariibay waxaan la kulmay sawirkan ka haystay taariibta sawir aan ahayn oo aad uga duwan oo kolkii ugu horeysay maadaama uu dalkeenu sharci xoog badan awood badan lahayn dadka ajaanibka dalkeena imaadana aan sharci adag la weydiinin bal inagu laakiin markaan dalalka kala baxno sharcigu caqabada ugu horeysay la kulantay baa markii ugu horeysay Soomaaliland ka baxnay Ethiopia caqabadii ugu horeeyay halkaas nooga bilaabmeen oo ahaa sharci darro isugu jiray iyo baahi iyo bayhoof iyo iyadoo lagu qaranayo sidii qof bini'aadam sida alaabta kale lagu qaranayo waxyaalihi intaan safarka ku jiray qosooyinkeedu aad bay u badnaayeen laakiin waxyaalaha hadda aad ii taabanayeen mar walba xanuunkeeda dareemo waxa kamid ah sidii dhalinyaradu dhibaatooyinka ugu nugleyd iyo dhibaatooyinkii markaas soo food saaray dhalinyarada imka waxyaalaha aadkayga xanuunka badan aad ku xasuusta waxa kamid ahayd habeenkii ugu dambeysay aan badda geli doono ayaa wuxuu ahaa habeen aad u layaab badan xanuun badan buu ahaa runtii markii ugu horeysay naaqudaha doontoodii ma haynin aqoon u leh xirfadan ama in aqoon u lahaa ma hayn oo hore u wada jiray oo ahaa naaqude doomaha kaxeeya bal wuxuu ahaa mid anaga naga mid oo la yar tababaray den kiiba habeenka safarka isaga hogaaminayay waxyaalaha xanuunka badnaa waxa kamid ahaa dumar uur leh iyo kuwa carruur watay ayaa labadaba ku jiraan meesha doonta nala saarnaayeen wax sahay oo doontaas haday maanta nala lunto ama naga khaldama jirin noo saarnaana ma jirin haddana iyadoo sidii taayba sidii dhacday tiyaan ku baqaynay waa hay'ad nujeeyay naga khaldama naga lumay waqtigii la noogu talagalay markaa noo sheegay oo ahaa 8 saacadood waqtigu aad buu uga batay waxay noqotay inaan ku jirnay 24 saacadood isku wareega baday nagaan wax sahay wadanay carruur yar yarna nagu jiraan dad waaweyn nagu jiraan iyo dumar uur leh intaba xaaladahaas kale markaan xasuusto waa kuwa dareenka aadka wax xanuunka badan ugu beera badii baan galay badii baa laga soo qabtay dib baa loo soo celiyay xabsiyaan dib uga galay magaaladii Tripoli caasimadii meesha dawladda ay kamid jireen sharci kama shaqeynaynin xabsiga wad iskaga jirays iyadoo wax sharci meel toona lagu horgeeyay marka bilaa rajo xabsiyada ahayd ay hay sababta ugu weyn oo horta uga soo noqonay marka kamaana fikreenin marka anagu caqabadaha in isbedelayeen kale laakiin sababtu waxay ahayd inaan barto marka ugu horeysan nafayga badbaadina sababta ugu weyn marka horta ugu soo noqonay dalku taas ahayd imika marka la eego caqabadaha dalka beriga ka jiray ka hor iyo imika caqabadu sideeyeen horta caqabadiina wax iska sii bad inay wax ku sii darsameen caqabadu intii ka sii dareen mooyaan wax ka soo reeyay ma jiraan marka caqabadu imika ka soo reeyay oo kale caqab soo waxa iska bedeleen ma jirto laakiin fikirkaygu wuxuu ahaa markaan soo noqonay inaan barto nafayga la badbaadino wuxuu ugu weyn maanta meesha ka soo dhaxlay waxaan oran karaa waa khibrad bahayd yaanigo dalka qiimihiisu leeyahay gartay marka si loo eego oo ay noqoto dhinaca citizenship dadkaaga iyo dalkaaga inaanad wax caqabada oo tiyaad bariga ka dareentay oo kala aanad ka dareeminin markaan dalka soo noqday hawlo badan baan bilaabay dhinacyo badan ma sha Allah hadda waan shaqeeyaa fariinteeda ugu dambeysana la ka sheedinay waxa weeyaan waalidka horta waxaan fariintan faray ay tahay in dhalinyarta aad uga warhayaan fursad siiyaan chance siiyaan maalgeliyaan garab istaagaan dhalinyaraduna inay aad uga fiirsadaan horta kolka ugu horeysaba markay talaabo qaadayaan oo ay marar badan waqti geliyaan inay ka fiirsadaan ay ka fikiraan waxaan aad ugu mahadnaqayaa qoladan oo iyaguna ah in uu ka gudoomiye yahay nin isna soo kamid ah dhalinyaradeedii soo noqotay xilliga hore soo noqotay oo dadaal iyo waqti geliyay si uu dhalinyarada wacyigelin ugu sameeyo waxyaalo badan oo ka dahsoon oo uu tuso aad bisna ugu mahadsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.